irbayseen qodobka aad xoogga saarteenna ee ay igu soo samayseen maalinta yawmal qiyaamaha ilaahay baan idinku xawilay oo idinma afin baan idinku iri maalinka yawmal qiyaamaha ilaahay baan idinku xawilay weliga uma haysan inaan cadow leey halkan waxaan si gaara uga taageeranayaa reerka anigu aan ka dhashay plus shaabad baas idin wada saaran sanad baan la joogay markii ciidanka ay og yimaadeen in yar kadib uu yimi wixii ba sanad baa lagu soo koobay hablo kale waxaan arkay yiri biil baan ku siinay inoo $150 biila ayuu ku darsanayay reerka may inaadeen ma rabo inaan ka hadlo waa ilmahaygii maskax ka weyn baa heshay laakiin halka mid aan anigu haddaba anigoo carabi ku hadlayaan yaala daahir waa kan fiir ma aniga waxa lagu sameeyay fiiro kaas سبب يا رؤساء وأنت في مجال الصحة يجب أن تسبق الأمور قبل أن تتفاقم حتى الآن لم يتبقى سوى خيول من الإمدادات لدينا إلى أهل الصومال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع أهل الصومال أينما كنتم أقول لكم عيد سعيد بمناسبة 18 مايو وأتقدم بالتهنئة والتقدير لجميع اليوم عربي سنة ما برن وحكو هبليين إن هذا الوح كلا أو بدن اسمع الهين عدو جاجو حتى وأكو أدو أتكلم على تي الصومالي لان يسوق ولا الآن ما يستوي دا عني من أقولنا ثم دا على سكتة ثم قلبي حكم على سكتة waan ku guuleysanayaa walaal codkuna wuu go'ayaa hooyada horta qadaray weliga qof gurigaaga kayso aan dhamaysto walaal qof kambe gurigaaga soo dhaweys kayso haya wixii kala waa halkeeda waa xanaaqsiin way ku xanaaqsiin ma fahmistad baasha faham fuuta lagu soo dhacay faham baasha marka ilmaadeerayaal aniga waxa iga daadagi weyday sidii aan ahaa cidna ma qancinayo awlaad baan haystaa alxamdulilah rabbil caalamiin horena waan idinku sheegay marka fiidiyowgana ku noqda sharmuutadii ku dhashay waxaa la dul saaray marka waan idin salaamayaa anigiyo ilaahay baa is og aaladana waa lagu kala tegay wax la yidhaahaa jira wax kalaa laydiin keeni doonaa iminkaba inta bej kale lasoo qaadaa lasoo dhigay dirac yaro gurigaygii aan iska heesayo anigu daacad baan ahay cidna waxba kama qarsado boqolaal qof baa jooga ku nool yimaada إنا لله وإنا إليه راجعون ما نسلحين لكن تدك كله مو يعني خير سومالي لان أو يقانه أو وحن قلا وحن جذا يقانه أياد تدك راعي دونا أو عاد كدلتي أو عاد كل شيء oo ku yaqaana Soomaalida qabiiladu baabiisay isug ayaa waxa kugu samayn doona ma filanay yaartaana waa idinka qanciyay waxana waa samays ilaahayna yaanu igaga tagin marka caalamkuna hore u maray وحبسدا انت هدو اسقومامين لهيدين او اوران لهيدين غدن دنبي بانو كغلي idin manaan cafiyin caawa hadaan dinto qof wal oo dambi iga galay kuwii caruurtayda habaaray kuwii hadii eeba ku roon yahay
aniga halka ee la qatan yahay luxudkaan idin fadhiyaa waa irbayseen ma dhamaysto oo marka wax kale ii weydeen ma dhamaysto may waan wadaa marka wax kale ii weydeen oo sumcadayda si kale ku dishaan weydeen ayaa ay igu soo samayseen qodobka aad xoogga saarteenna maxaynu kaga aarsan karnaa codadkana waa la sameeyaa horumar baa la gaadhay laba qof isku eeg baa la sameeyaa waxa weeyaan laba wajiye isku eeg baa la sameeyaa saa isu dhudhukanaya markaa maalinta yowmal qiyaamaha ilaahay baan idinku xawilay oo idinma cafin baan idinku idhi maalinka yowmal qiyaamaha ilaahay baan idinku xawilay halkan waxaan si gaara uga taageeranayaa reerka anigu aan ka dhashay blas shaabad baasa idin wada saaran inta markaan ka tago waxaan kaloo halkan uga hambalyaynayaa inta ii hiilisay inta ii soo hadashay waxaan kaloo aad iyo aad iyo aad iyo aad rag aanan ka filanayn oon gadaal uga soo hambalyayn doono walaalka Idris Beebe oo isagana cafisaan weydiisanayo ninka ugu maskax badan uu yahay TikTok idinka oo dhammaystiran oo isku duuban haddii inankayga xataa aan caay lahaan khaldami lahaa inuu soo bandhiga ma yahay in yarun buu xeerin lahaa xunba gudhay maaha fiiskuu dhammaanayaa lacagta way dhammaanaysaa wax waliba way dhammaanayaan idinka laftirkiinu inay yaacdaan maaha inuu ii xilqariya yahayd ma yahayn baraha bulshada inuu i keeno wayse dhacday waa ilmo yar way hoos martay cafis buu iga yahay aakhiriya adduunkaba hooyo hore u soco noloshaada wado adiga iyo anigu sognay dadka marka laynaga dhex saaro xalayna adiga waxaad sheegtay inaan 70% maxamed kaa jecelahay dadkow faarta ku noqda 70% inaan maxamed kaa jecelahay adiga ku jecelahay oo maxamed aan madaxa kaga istaagay ku noqda hadaladiisa waana ku jecelahay waana ku jeclaan doona dadkan oo dhan way harayaan innaga isku soo harayna way iska tegayaan xaqiiqdeena dhabta ah inaanan kaa kaftamin waad ogeyd allana waa ogaa cid walibana waa ogeyd hore u soco wixii sharaftaada haddaan ku leeyahay wixii sharaftaada iyo nusqaantaada waad koraysaa waad guursanaysaa wixii sharaftaada iyo nusqaantaada hoos u dhigayana ka fogow dadkana inaga meel wax ku wada cunay inaga meel wada seexanay inaga meel wada joognay inaga meel waxa weeyaan halka isaag fadhinay 3 sano ku dhawaad nabigeena maxamed cali salaatu wasalaamna ma gayacay iyo aflagaado hooyo macaan hore u soco guul baan ku rajaynayaa daahiro guul baan ku rajaynayaa tolkayo guul baan idin rajaynayaa wixii aad ahaydena waa i barteen maasha Allah waay anu dadka weligay uma haysan inaan cadow leey weligay uma haysan